xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxaa ku jira boqolaal maxaabiistan qaarkood waa la xukumay kuwa kalena waa xukun sugayaal. Taliyaha ciidanka asluubta Xuseen Xasan Cusmaan oo saxaafadda la hadlay kadib munaasabad ballaaran oo hay'adda Hormuud Foundation ay ku guddoonsiinaysay deeq ay ugu talagashay maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Xamar ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda maxaabiistan ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Waxaana sidoo kale hay'adda Hormuud Foundation uu kaga mahadceliyay deeqdan ay maanta soo gaarsiiyeen taa oo isugu jirtay dhar loogu talagalay in maxaabiistan ay ku iidaan kadib marka ay soo ilaato bisha barakeysan ee Ramadaan, raashin iyo weliba xoolo nool ka oo ahaa 5 neef oo geel ah. Hormuud markii koowaad ma aha inta wax noo keento saddex soo isku xig inay wax noo keento maleynaya wixii yar yar oo daawo dhaxal ku jiray waa gaar laakiin sembir saasay noo tahay runtii waxa weeyaan aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ma arag sharafta leh ay noo qaabilaan oo markasta xilliga soo markii la gaaro waxa weeyaan maxaabiista raashinka aan siinay kii ay siiyaan kala bar noqonaya marka haddana maanta waxa weeyaan raashin fiican bay noo keeneen bariis oo 300 loor ah sokor oo 100 loor ah bur oo maqli 100 ah saliid oo maaragtay 5 fuusta ah tamar oo 125 kartoon oo tamar ah caleen shaahi oo 5 jawaan ah cabitaan oo asna 10 loor 10 kartoon dharka ciidanka loo keenay waxa weeyaan 1315 joog geel waxa weeyaan maaragtay 5 nafar geel. Gudoomiyaha hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Cismaan Nuur oo isaguna saxaafadda halka kula hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay deeqdan ay maanta gaarsiiyeen xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. maanta waxaan joognaa xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho halkaas oo ku guddoonsiin doono gargaar aan ugu talagalnay maxaabiista ku jirta xabsiga ayadoo qayb ka ah barnaamijkii aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan ee soo socday maalmihii aan soo dhaafnay sida aad la socoteen maalintii shalay waxaan gargaar gaarsiinay dhammaan bukaanada ku jira isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho waxaa ka horeysay barnaamijkii aan ku kaalmaynay dadka naafada ah barnaamijkan ama gargaarkan maanta aan soo gaarsiinay xabsiga dhexe waxa uu ka kooban yahay raashin noocyadiisa kala duwan dhar neef oo geel ah marka hadda waxaan joognaa geeli waad u jeedaan waa kan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in ay wax u taro wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Bilan Nuur oo isaguna halkaas saxaafadda kula hadlay ayaa hay'adda Hormuud Foundation waxa uu kaga mahadceliyay deeqdan ay maanta soo gaarsiiyeen maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. hay'adda Hormuud waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa anoo ku hadlaya magaca wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka raashinkan faraha badan ee bisha barakeysan ee Ramadaan ay ugu soo talagashay maxaabiista iyo xabsiga runtii waxa weeye wax aad loogu faano in hay'adaheena samafalka awal waxaan maqli jiray hay'ado kale oo samafal iyo qolooyin kale ay noo soo kulman jireen in hay'adaheena inaga dhexdeena hay'ado samafal ka samaysmaan. deeqdan ayaan ahayn tii ugu horeeyay ee hay'adda Hormuud ay gaarsiiso xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho iyadoo kala hor xilli ay ka dilaaceen daawan caloole ay gaarsiiyeen deeq daawo iyo weliba qalab kale isugu jirta. Xasan Kaaf Cabdiraxmaan, Puntland TV, Muqdisho.